نعم سات الحمد لله أنا نوصل في قيس وبهالكاميرا الله باشنه إيه ورن كوما ما يكون عنيسه أيوة نود ساتين هتكايس عمش أنا وعند الحس بنكون جراي إيه ورن هذه هذا الحس أيه وكا وحن رادنا يا وان دول برنا يا أيه وكاس ود الحس بانها باديها نماذج وأنت كيمت دنكا ay gaaris baan ka imaaday iyo نود aad meelahan aad deganta جيل أرور ماشان جوجان ينودي haye marka بعد واحد ماشان هو ماتي ضلعان بدني ذا maya hadee waa adigu soo moogid hadda inta deganta anna magaaladan degan intaan marka aniga intaan xiisaynaya أيه wakaas bal iyo waran نود aad baan ugu faraxsanahay aragaade ما أنا أرجع waan jeclahay in aan dhalinyarteeni oo baadiyaha ku nool dhaqanka iyo hidaha inaan arko oon wareystaan jeclahay wakaas ma xogaa ila sheekaysid waad iga socotaay باش أنا نوصل في قسم معقولة شكل سنة baasha kuma cunaysa baasha iyo waran bal نود waxyar ma kula sheekaysan karaa أو شكل سنة ناسو yaa أو إيش شكل سنة ناسو haye نود ka waran haddii aan su'aalo ku weydiiyo ما حد سؤال يودين su'aalo oo dhaqanka iyo wax baan rabaa inaan kaa wareysto دعان سئ baadiyaha iyo nolosheeda iyo ما دي وكان راح جوكتونا نقول رئيسنا haye bal ka waran hadda baryahan aaran bay idin tahay أرمو برواقو هدوك لك هدوا عدا haye بس waxaan ku weydiiyey magaalo ma tagtay weliga أنا مياه بري بنتي haye ma u xiist intaa ka soo maqneen بري أنا خلص بليكي haye مركا بس wax ma kaa weydiiyaa magaalada maxaa ka taqaanaa magaalada waxa laga aqaani waa dad meel aan aadin oo dalaan oo meel iska fadhiyo haye bas waxaan ku weydiiyey dhaqanka magaalada wax ma ka taqaanaa dhaqan magaalaha hadda aan ka aqaano quman ma laha haye bas heesaha ma dhegaysataa heesaha kuwa geela mise kuwa qaraamig iyo kuwa geel iyo baryahan idinka kurayda moobilaha ka dhigeysta baryahan idinka warreey magaal baad noqoteen oo heesaha aad baad u dhegaysataan heesaha waad dhuuxdaan u maleen ma hadda hees ana ma dhegeysti laakiin ma dhegeystaan way jiraan haye waxaad maqashay maxaa heesahaad maqashay bal wax nooga sheeg hadda hees aan kaaga sheekeyn kara male haye laakiin sheeko waan ku sheegi karaa haye waxaa jirtaa la yiraahdo ka hor nimankan geel dhaqatada horta niman aad geel haddaad raacin horta adduunka waxba badan baa kuu dhiman haye nin baa hadda ka hor wuxuu iga sheekeeyey wuxuu yidhi nin reer baa wuxuu ka koomaa wiil hooyadii iyo aabihii geel badanna waa lahaayeen haye geeli wiilka raaci jiray odaygii baa maalinkii dambe xanuunsaday wuu dhintay hooyadii wiilka dhashana xaamil bay ahayd micnaha uur bay ahayd way umushay gabar bay dhashay laakiin gabadha iyo wiilka ilmo badan baa u dhexeeyeen oo ka dhiman jireen hooyada ayada haye marka waxaa dhacday in gabadhii markay dhimatay hooyadii markay dhimatay wiilka dhashay 15 sano wiilka markaa jiray hooyadii baa yaa geeriyootay oo umul raacday gabadhii oo yar iyo wiilkii baa reerkii ka soo haray markay ka soo hareen waxaa dhacday gabadhii inuu koriyay noqotay 15 sano markaa wuu jiray markay da'diisu 30 iyo wax noqotay ayaa gabadhii laga soo doonay gabadhii ayuu ku daray nin ku daray
8 bilood markay ka maqan tahay oo gabadhii reer kale uu u guuriyey ayaa waxaa dhacday gabadhii oo si xun loola dhaqmay oo la jir dilay ayaa loo soo celiyey oo xaamilana ah walaashiis oo aad u dhiban markuu arkay wuu xaraariyey neef buu u qalay way umushay maalinkii dambe habeenkii dambe waxaa dhacday asagoo geeli dhex joogo ayaa gabadhi fool qabatay wiil bay dhashay markuu xudunta ka jaray ayaa haddana nabar qabtay baa layidhi wiil kaley dhashay way dhiig baxday meeshii bay ku dhimatay wiilkii marka walaashii soo koriyey ayaa haddana wiilashii inuu koriyey ay noqotay masgadashaas waxaa dhacday marka odaygii marka waxaa dhacday inuu wiilashii uu 6 sano markay gaareen in uu iskool geeyey oo iskool boarding ah waliba uu geeyey asagana uu geelay la dalkacay oo dal kale uu la galay waxaa dhacday odaygii marka wiilashii oo 6 sano ahaa hooyadood oo 15 sano ahayd aday 40 meeyuu gaaray marka guurkii waa ka dahay wiilashii odayga 6 jir bay ahayd markuu ka tagayay 20 sano ka maqnaa 20 sano ayuu guursaday asoo da'diisu weynaatay asagoo weynaatay ilmihiisna yar yihiin ayaa geelina ka dhamaaday marka waxaa dhacday wuxuu u imaaday wuxuu soo yahdiyey ama soo heebsaday wiilashii meeshay jireen maalmaha ka mid a marka waa loo tilmaamay wuxuu ka soo dhacay wiilashii oo maxaa la dhihi jiray marka ingiriiska u shaqeynayaan dalka sida la iga dhigay wuxuu ahaa dalka Somaliland hadda loo yaqaano odayga meesha geeli la galan dhankan Soomaali galbeed baa wiilashii wiil ka mid ah oo shaqo helay oo reer yeeshay oo carruur dhalay ayuu ka soo dhacay gurigiisa marka uu u soo hambaabacay ama si kalgaceel leh ilaa umul buu la galay meeshii hooyada jaceelkeedii buu u qaaday uu u soo dhawaaday oo uu rabay wiilka intuu istaago 20 sano abtiga ka maqnaa waa ninkii soo koriyay uu istaago uu qoryeesto ama uu xabad ka saaro ayuu wuxuu ku yiri gacanta intuu saa ku yiri ku firdhiyo wuxuu yiri xagga mar oo ka ameel firiisiyo yiri odayga habeenkii gogashii qaban waayay hurdaa qaban waysay waa gadgadoomay waa uur ku taalo badan baa qabatay aad iyo aad buu u murugooday waxaa dhacday marka in waaga markuu bariyay ninkii wiilka mataanka la ahaa gurigiisa la geeyay oo ka dheereen in marka odayga hadii la wareysan lahaa ta habeenkii wuxuu dareemi lahaa xogaa nafis lahaa kii kale markuu u tagay odayga laakiin hadda waa niyad jabay ma xiisa badan ma hayso ninkii kale ayaa shalay sidoo odayga noqday oo ilin indhaha buuxsantay oo ilimeeyay oo soo kaca kufay oo odayga qoryeystay oo dhinacyaha ka dhunkaday laabtii oo hebel miyaa buu yiri odayga markii baa cidiyaha laga jaray tinta kore uu ka xiiray tinti oo maxaa la dhihi jiray garki uu ka xiiray uu nadiifiyey abtii oo fadhi ima yaalo yiri carruur baan meel bil aan soo socday kaga soo tagay ninkan kale ka madaxsanaa waxaa dhacday marka in uu odaygii marka la daaweeyey la arad bixiyey gaari intii loo buuxiyey raashin daawo iyo wax walba loo qaaday carruurtiisii loo geeyey marka ay carruurtii daawoobeen oo labiskii loo xiray oo dhergeen ayuu odayga gabiyey baa layidhi anigu gabaygii waa raadiyey waa waayey laakiin waxaa jirtaa hees uu odaygaa ii sheegay oo laga sameeyey gabayga asaga ah heeskaana waxaa qaadaa fanaan xasan aadan samatar la yidhaah sida la ii sheegay